الصوماليات بعض يونيفرسال iyo wasiirkaba magacayga waxa la yiraahdaa Dr. Salaad Muuse Cali waxaan ogsoonahay dawladaha federaalka qaatay intay saqaadan koox waxay sameeyeen wacyigelin seminaaro oo shacabkeeda u sameeyaan marka ay shacabkooda ay fahmeen waxa uu yahay federaal ayay qaateen federaalka maxaa loogu sameyn waayay shacabka Soomaaliyeed wacyigelin iyo seminaaro loo fahansiiyay waxa ay tahay federaalka ko mid labaad waxay tahay su'aashida labaad aqoon yarida federaalka waxay keentay waxa la soconaa hadda koonfur galbeed ayaa caan laga soo qaaday waxa la suray jasiira gobolka banaadir ayaa diiday yiri laga bixiyo meesha problem ka dhacayo xataa lagu dhaawacmay marka labaad galmudug gawaaridii ka bixisay aadiisay Puntland waa la joojiyay waxa la yiri soo galka Puntland waa in kala taas waxa keentay ayaa sheegay aqoon yarida soo federaalka aqoon yarida federaalka naga haysato iyo federaalka soo dhibaato ku soo kororto maahan shacabka soo federaalka soo dhibaato ku soo korortay maahan shacabka aqoon yariska naga haysato waa ma santahay aan qaadno laba su'aal iyo laba su'aal afarta su'aal aan ka jawaabna kadib aan way Umar adbaan Umar Abdulsalam Umar ha arinta ku saabsan maxaa lagu saliyay طبعا waxaa lagu saliyay dadka tashtay Puntland 1998 laakiin waan idin sheegay tijaabadii oo Soomaaliland ka horeysay 1991 ahayd buro iyo shirki Boorame labadaba dan kana Puntland oo Garowe lagu dhisayna kaas isagoo aragtidii laga haysto yaa waxa la yiri awal dad badan oo kamid ah markii burbur ku dhacay waxay sugayeen in dawladda federaalka dawladdii sideed ay u soo laabato federaalka waa markii soo laaban weydo dadku daaleen aan ayaheena ka tashadno asaas waxa aan ayeen ka tashadno ka tashigaasana wuxuu keenay in ay Puntland samaysanto طبعا federaalka markii la yimid oo 2004 federaalka laga dooday su'aasha oo ninkan odaga ahay dhinaca ka kabaysa waay oo federaalka la isugu wacyi gelin waay yaa wax wacyi gelinay dawladda markaas jirtay madaxtooyada waa loo diiday inay timaado madaxweyne Cabdiqaasim meel yiraahdo jirta inay madaxtooyada timaado waa loo diiday inay dekada tagto waa loo diiday inay airport qabsato waa loo diiday inay meel aad waa loo diiday maxaa la wacyi gelinay war marka waa la isdiidan yahay waa macnaheedu dadku ninba marka saaxiibka ayaa maalin dheed soo qoro ninba markii siyaad barel riday anin loo wacay markaas la yiri niyo soo bax waa dagaal tageynaa oo maxal jir dawladda la riday madaxweynaha la riday xubnaha leeyahay ma noomar roona la yiri soo bax waa la riday waa la soo duulay xamar al yimid madaxweyne waa la riday maalintii dambe waxa badan maqlay marka maxaa jira la yiri madaxweynaha la doortay la yiri المدينة مدحوينه laga dhig waxaan loo lahayo rida marka diiban la keenayo kan hadda ridnay Soomaaliya madaxweyne dawladii oo dhan la dirsanay markii dawladii 4 sano ay joogtay la soo tagay Soomaaliya dib loo celiyay magaalada la isugu tagay la is wareystay waxa la yiri dadkan islaama joogaan dadkan dawlad goboleed hala kala ajiib hala kala qaado wacyi gelintaas ciiday saareed waa hadda waxa socdaa wacyi gelinta qaybka yes issue of time ajira waxa soo dhan waxay ku xiran yihiin dhaqaalaha iyo resources iyo fahanka labada intaba fahanku waa yar yahay dhaqaaluhu waa yar yahay awood waa yarta dawlad dhisan anaga oo intay wax samaysatay fakartay Soomaalida adduunka jirta la soo wacay la yiri jidkeen marayna ma ah dawlad ku dayaan marayna anaga walaal geerkan ma birmadi waa gali weyda sugunto ku day laakiin mesela dawladaha hadda oo Ethiopia kale mingista ka kacay mingista markuu ka kacay dadku federaal aan aadinayeen waa la fariistay muddana la fadhiyay waliba tijaabooyin badan waa soo maray Sudan waa sidoo kale nidaamka federaalka inta soo meelo maray process laakiin dawlad waxa awoodaha jirta oo haysata wixii oo resources ka haysata oo canshuuri haysata oo ciidanka haysata oo booliska haysata meesha ciidana ma jirin boolisna ma jirin warkeen wuxuu ahaa wax ma isku darsanaa wadaqaba iyo biyo qaba waa isu baahan yihiin war wax ma isku darsanaa أنا waxaan aaminsanahay runtii meel weyn ah waxa lagu soo gaaray wax ma isku darsanaa arinta ku saabsan oo Umar uu ka dhawaajiyo galmudug iyo maxay ka kooban tahay aniga waxaan isleeyahay su'aashaas biyoon su'aashaas hadda joognaa dawlad goboleedyada waa soo dhaafnay arrimaha xuduudaha iyo waa taagan yihiin guddi dhana jiro federaalka xuduudaha la yiraahdo oo tagay ayaan dhaweed aad aragteen soo gaalkacay joogo loo waramayo la soo xanaaqsan yahay waxa soo dhan waxay kamid yihiin healing process la yiraahdo daaweynta dadkan waa istagaaleen waa isdirsan yihiin cuqdada jirta daaweyna jiraysa marka
waqtiga qaadanaya marka daaweynta laakiin dadka ugu roon aan ku jirnaa afrikada isdagaashay dabcan inaad de waxayna dagaalkeenuna uu fiican yahay oo nabad qabana beryahaana ba aragtaan oo xalab iyo sida la isugu galay suuriya yaa waxaa noqonaysaa qarso iyo faraha arrinta ah federaalku dhibaato ma keene federaalka markaad aan rabo in la cambaareeyo waa ka hadlaa marar badan aan ka hadlaa waxaan idhahdaa beri badan oo intiinaan xasuusataan oo waxaa jirta inta laga duulo kismaayo lagu duulo inta laga duulo buulaxaawo iyo baydhabo iyo kulli lagu duulo inta laga duulo gaalkacyo iyo dhinacyadeeda lagu duulo hadda maalin dhaweyd sanadkii hore markii gaalkacyo dhibka ka dhacay ra-iisul wasaaraha madaxweynaha koonfur galbeed madaxweynihii puntland kan galmudug kan puntland wasiiradii intii ugu muhiimsaneed kulligeen gaalkacyo aan isugu tagnay suuragal ma ahayd 1991 to 1992 2000 inaan intaas samayno suuragal ma ahayd maya ma ahayn waxaa keenay hadda qabaa'il manihi markaas qabaa'il aan ahayn reebel iyo reebel hadday isdagaalaan adiga haddaada reebi lahayn waxaa ka gasha male laakiin haddii puntland iyo galmudug isku dhacaan ra-iisul wasaaruhuna waxbuu ka galaa madaxweynuhuna waxbuu ka galaa wasiirka arrimaha guudahuna waxbuu ka galaa adduunkuna waxbuu ka galaa meel laga xisaabiyay leeyihin oo la yidhaha hey stay away sax maaha waxaan aawadiin that's why u fiirso arrintan ay sheegayso hadda jaziire ka dhacday waxaa la yidhaahdaa munaawashaad carabiga xoogaa yaroo reexreexeed ma ogiye wax oo anaguna ma aqbalnayn ayaguna ma aqbalaan koonfur galbeed ma aqbalayso banaadirna ma aqbalayso dowladda federaalkana ma aqbalayso laakiin de meel waa jire arrimaha xuduudaha weli lama dhamaynin jaziira koonfur galbeed ay ka tirsan tahay dada aaminsan qolo kale waxay leedahay maya anaga wallahi bilahi waaba intaaba arigeenaaba daaqe iyo loodeena see u imaanaysin adig weli dad badan waxay se aaminin koonfur galbeed inay ka kooban tahay shabeellada hoose iyo ay iyo bakool marka intaas fahno yaa waxaan aqbalaynaa aan ku laabanaynaa shabeellada hoose intay timaada xuduudeeda day shabeellada hoose aan u ogolnahay jaziire meesha la yidhaha inay shabeellada hoose ka tirsanaan jirta waa inaan ogolaanaa inay koonfur galbeed misalkaas marka waqti oo qaadanaa waa midda aan rabaa inaan ku qatmo ah wacyigelintu hadday socotaa federaalka haddaaba la dhisaaba goormaa lagu wacyigelinayo dadku wixii si aqoon laguma wacyigelin karo wallahi waddanka waa la qaybin doonaa dowlad goboleedyaa laga dhigi doonaa xoogaa xuduuduhu isku dhaca imaan doona traffico iyo bahalka maxay ahayd taarge kala duwanaa la yeelan doonaa calanaa la dad badan oo kamid a u fiirso markii calamada hadda dowlad goboleedka lasoo saaray dad badan oo hadda booyahan waa laga gudbi waagi hore fiiri calanka soomaaliya laga tegi maya calanka soomaaliya lagama tegi laakiin weligeed 18 gobol 18 calanay lahaayeen waay oo kan different ugu yahay ee hadda puntland samaysatay ama ay koonfur galbeed samaysatay ma aha wax ka duwan gobollada calan ay lahaayeen iskoolada calan ay leeyihin jaamacaduhu calan ay leeyihin bisha cas calan ay leedahay madaxtooyadu waxay leedahay astaan lagu garto booliska soomaaliyeed calan ou leeyahay iyo astaan lagu garto calanku macnaheeda ma aha calankii weynaa kan weyn waa wada harsanaynaa koo yaroo calaamad u ah qolo walbaa samaysan kartaa wuxuu dhibaa lama arto adiga xataa xaafadaada waa u samaysan kartaa degmooyinku way leeyihiin degmooyinku waa leeyihiin bondheere iyo